ما هذا الكبضن با أنا هالك اللي جبها هي وحن شغله هاي إن أنا أدوكم ما هاد نقو ماذا حدا حزبك كل مية أورت وحيبة كوفي عن تهاي كل مية الشيب أولي هيبة ولي متقين مركا برا اللي عليك هذا أنكو عليو وحنو ما نضيع ماذا حدا حزبك وطني إيو تاغيرياشيسا إن مرتقات كان نكو خاتمان نوفديان مر البنا إلى أنتي أن وضع هذا الكلق اللي دولة الصومال الآن حزبك وضعني مدحديسو مر البتاغيري لقرب تاغنيد وضع هذا الكه إيه هشيس يد اللقلي آديات بيومات سيهين وأهرنا أنني لا وينين وأبالي النوقلين أنه مروا بحسوسنانين وحان ربايانا إنان مقالة برعو هي مدحدي دي شعب كيدنا وقوم هدنقو برعو ووضنها الصومال اللان وحا أنا أي مدنتهاي إن لو أقعدوا إنتي هوري مقالة برعو يدد كيدو أي قبني من دومني ما هاتو كعتان مربع قضية وحي تايهات إن يدور آديات وين أي تاريخ دا كلها هايين هدنا اللوغة منهم فرديو وحان مغلينا شرر دورة ومقالة اللوغو تلقلي وحان رجينينا كواسو إن اللوغو قوليستو وأي هرقلان وحان قبا شرر كاسدين لقبتو اللوغو قوليستو إنay wax weyn oo weyn ka tari doonto Soomaaliland koritaankeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeedaba reer Burco arinta idinka la idinka fadhiya waqtigan aynu joogno wax badan oo isbedel iyo kacdoon ka socda geeska Afrika oo dhan inta af Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxaan qabaa oo aanan ka marin habaabayn in Somaliland door weyn ay ku leedahay horumarka iyo nabadda iyo midnimada inta af Soomaaliga ku hadasha waxaan qabaa inaan laga hadhi karaynin isbedelka iyo kacdoonka geeska Afrika ka socda waxaana mudan hawshu maamul iyo dawlad iyo maamul jira maaha siyaasadda karkarinteeda iyo qaaxideeda iyo aragti dheer oo laga sugayo waxa leh xisbiyaday tahay inay waxan soo bisleeyaan inay ka soo doodaan inay tilmaamo ka soo bixiyaan loolanka siyaasadeed kuma eka marka doorashadu jirto xisbiga guuleysta wuxuu noqonayaa ka intaan looba dhaqaaqin doorasho iyo tartan iyo xifaaltan cidda isku mashquulisa arrimaha ummaddu ay leedahay oo loo baahan yahay in aad looga doodo oo maanta wax weyn baan halka ka bartay arrintan niqaabka loo xidhanayo waxaan u malaynayaa inaan meel fog lagu gaadhayn niqaabkana aan iska dhigno golayaashana dooda looga baahan yahay geesinimadu meeshaasay ku jirtaa geesinimadu maaha
hub la qaato geesinimadu waxa weeye waxa dhabta ah ee ummadda hor yaalla ee la kala doordooranayo ciddii tilmaanta oo qeexda waxa loo baahan yahay inta badanba waa laba daran mid dooro wax xun iyo wax wanaagsan wiilka yaree 5 jirkii wuu gartaa laakiin laba daran mid dooro waxa uu ka talin karaa cidda cadna u ah geesinimana ay ka muuqato arrinta ugu culus ee Somaliland maanta hortaala aniga aragtidayda waxa weeye arrinta dhalinyarada iyo waxbarashada dalkan taala arrinta dhalinyarada iyo haddaan si fiican looga fakirin meelaha wax laga baranayo ama iskuulaha ahaadeen ama jaamacadaha ahaadeen haddaan arrimaha laga fiirsan haddaan arrimaha la xidhiidhin maxaa suuqa looga baahan yahay maxaa looga baahan yahay kartida iyo aqoonta looga baahan yahay maxay tahay manhajyada iskuulada iyo jaamacadaha inay xisaabtu ka doodo in arrintaas si fiican looga doodo oo waxa ugu mudan la abaaro Somaliland kama duwana adduunyanaha waxa ka dhacaya الربيع العربي أما كعدون كده لك عربت كدعي وحا أقوينا دليرة وحبرتي أو أنشغل الله هين وحنا مغلية أو لقوبة فانفانا إلى اللي كنت تضبكن أو أرضي يا جامعة الصوماليلاند كبحة انتبه شغل الله هيا انتبه عليه حرفدي يقونتي لوبانا أو كسوبرتي اسكولada iyo jaamacadaha wadani haduu rabo inuu kasbado dadka waqti waa inuu geliyaa khibradii hore inuu lahayna waa in dib loogu noqdaa cid alaala cidii aynu uga faa'iideysanayno adduunkana waa in adlub ilma walaw kana fi siinki xadiis nabawiga waxaan hadalkay ku soo koobayaa dhibaatooyin baa Somaliland ka socda maantana waaba maqlayay nin oday ah oo midhayn gudoomiyaha awdal gobolka awdala hadalka uu ku hadlayay hadal la dhayalsan karo maaha kuwa bari ka socda ceergaabo ka socda de waxaan u malaynayaa Soomaalida waxay tidhaahdeen tuke iyo xuusha midba war la weydiiyo waxa la yiri tukow goormaad wax dareenta markaan arko laba qof oo wada hadlaya xuushana waxay tiri waxaan wax dareemaa marka nabarku ama igu dhaco ama agtayda ku dhaco haddaan la dareemin haddaan garowshiya laga bixin haddaan loo dadaalin dhibaatooyinka la tilmaamayo wala Somaliland meel fog baa laga doonaa anagu taayadii kuma soo koobaye insha Allah Somaliland la wada leeyahay yeynu ku guulaysan doonaa waana mahadsantiin